كوية سيداتنا أرضي وصومالية أي سنة كان كقلن شبيه جامعة دلك ماليزيا وررنتاس الحرير أي واحد نوها يوريها هي سعيد عمر Soomaaliyeed ayaa sanadani 2011 waxay ka qalin jabiyeen jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Malaysia. Ardadani ayaa isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo ka baxay kulliyado kala duwan waxayna isugu jireen master iyo bachelor. Ardayda sanadani qalin jabisay ayaa tiradooda lagu qiyaasay 81 arday. jaamacadda UUM kaliya ayaa waxaa ka baxday sanadani 49 arday. qaar ka mid ah ardaydaasi oo weli jooga wadanka ayaa halkaasi waxaa loogu qabtay xaflad sagoodin ah halka kuwa kalena dalka dib ugu laabteen. waxaana ka soo qayb galay xafladaasi arday iyo marti sharaf kala duwan. ugu horeyn gudoomiyaha xafladda qabanqaabada Saciid Macruuf ayaa u mahadceliyay dhammaan asxaabtii kaalinta weyn ka qaadatay suuragelinta xafladaasi ay ugu horeeyeen xawaaladaha Soomaaliyeed ee ka howlgala Malaysia. waxaa mahad gaar ah mudan dhammaan dadkii suurtageliyay in barnaamijkan sida quruxda badan u dhaco. runtii rag badan ama hadooda ay aad iyo aad macnaha u muhiim u tahay ay ka mid tahay xawaaladaha Soomaaliyeed. waad dareemi kartiin aan jeclahay dhammaanteen barnaamij sidaan u qurux badan dhaqaale noocan ku baxaya kulli waxa qabsanaya iyo cid loo qabanaya waa arday safaarad ama qof macnaha responsible gareena ma jirto. arrintaas waxaa gacanteeda u mahadcelinayna xawaaladaha Soomaaliyeed. dhanka kale gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed Cabdisalaam Maxamuud iyo qaar ka mid ah ardayda qalin jabisay iyo asxaabtooda ayaa cabiraya dareenkooda ku aadan farxadda qalin jabinta iyo waliba inaysan kala tagin oo xiriirkooda ay adkeeyaan. farxaddan waxaan la wadaagaynaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ka qalin jabisay jaamacadaha Malaysia gaar ahaan jaamacadda tan aan ku sugannahay. waxaan rajaynaynaa in cilmigooda ay wax ugu anfici doonaan wadankooda ayna noqon doonaan kuwa samatan bixi dalkooda. maadaama laga yaabo inteena caawa baxaysa inaan fursad isku weynayso arki weyno runtii waxaan idinku boorin lahaa xiriirka waa shay muhiim runtii. anu waxaan jeclaan lahaa markaan Hargeysa tago ama Boosaaso tago ama Muqdisho tago Baydhabo Kismaayo inaan haysto safiir aan hotel ku digin anaga qof aan isku jaamacad ahaan jirnay oo saaxiibkay inaan ku dago ugu soo dhaweeyo. marka taas waxay ku imaan kartaa xiriirka iyo runtii iyo tashiga naga dhaxayn kara. marka waxaan idinku boorin lahaa dhammaanteen xiriirka iyo mid kale. Soomaaliya waxaa jirta shirkado aanan ogoleyn inay gabdhaha shaqaaleeyaan waa run laakiin waxaan idin sheegayaa inay jirto shirkado hadda bilaabay inay sameeyaan departmentiyo gabdho kaliya marka waxaan niyad jabina barashadiina sii wata waxaad tihiin hooyooyinkii mustaqbalka wadanku idinku ku dhisan yahay marka taas baan idinku boorinayaa. aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo barnaamijkan qalin jabinta ardayda Soomaaliyeed ee ku qalin jabinayso tiradan aad u fara badan ee wali aysan ka dhicin Malaysia. waxaan farxadeeda la qaybsanahay walaalahay ka qalin jabiyay maanta jaamacadda UUM. aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan ku dhiirigelinayaa ardayda kale in ay la mid noqdaan walaalahood caawa qalin jabiyay anigoo ah arday hore aga qalin jabiyay dalka Malaysia. waxaan had iyo jeer all the way safarkayga dheer u soo maray in aan la qaybsado walaalahay ka qalin jabiyay caawa. waxaan u mahadcelinayaa ilaahaygiini soo saaciday oo soo deystay inaan waxbarashada dhammeeno oo la doortay inaan maanta ardadan waxbarashada dhammeeynahay. teeda kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa familkayga oo had iyo jeerba isoo taakuleeyay. waxaa kaloo aad u mahadcelinayaa saaxiibadeyda oo waqtiga downka ah waqtiga faraxsanaaba yani niyadii soo dhisi jiray. waxaan runtii maanta aad ugu faraxsanahay waqtigan aan soo gaarnay. runtii waa waqti aad u farxad badan. waxaan rabaa runtii inaan abaalkan uga mahadceliyo dhammaan inta i soo gacan qabatay oo ugu horeeya waalidiinteyda walaalahay dhammaan inta nagala soo qayb gashay dhammaantood ayagana waan u hambalyeynaya waana mahadsan. jaamacadda tani waxay ku taallaa waqooyiga Malaysia waxayna xuduud la wadaagtaa wadanka Thailand oo ay u jirto qadar 15 daqiiqo ah. tanina waxay ku tusaysaa in ardada Soomaaliyeed ee wax ka barata wadanka Malaysia ay guud ahaan ku kala firdhisan yihiin jaamacadaha ku yaala Malaysia. Saciid Cumar, Universal TV.